Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Urdun Academy iyo koorsada la xiriirta luqadda Boortaqiiska. Casharkan wuxuu ku saabsan yahay ama aan sharaxaynaa agente fiscal e comerciante, wada sheekaysi dhex maray ama dood dhex martay agente fiscal. Waa baare dowladda ka socda, agenti wakiil fiscal baare ah iyo comerciante iyo ganacsade, yacni qof ganacsade ah oo dukaankiisa jooga oo u imaaday booliska dhaqaalaha ama fiscalka. wada sheekaysi dhex maray waay. Agenti fiscal ayaa hadlaya, muxuu dhahay bom dia, uu dhahay maalin wanaagsan, bom dia, maalin wanaagsan. Sou agente fiscal do estado, waxaan ahay baare agente wakiil baan ahay fiscal baare do estado oo dowladda ka socda. Estamos realizando, waxaan sameynaynaa uma fiscalização de rotina, uma fiscalização baaritaan ama kormeer ayaan sameynaynaa de rotina oo routine ah. Routine yacni wax soo laalaabtaa la yidhaaho mar kasta dhaca, waxaan routine waa dila rotina, taas waay. Uma fiscalização de rotina, baaritaan caadi oo joogtada ah. Aqui baan ku sameynaynaa no centro comercial, xaruntan ganacsi baan ku sameynaynaa. Gostaria, waxaan jeclaan lahay de conferir, inaan xaqiijiyo a documentação da sua empresa, documentayaasha shirkadaada. Documentação waxaa la yidhahdaa documentayaasha da sua empresa. E sidoo kale as notas fiscais, sidoo kale waxaan rabaa inaan xaqiijiyo notas fiscais. Notas fiscais waxaa kaloo loo yaqaanaa faturas, faturooyinka aad soo saarto ood clientiga siido ayaa waxaa loo yaqaanaa notas fiscais. Das últimas transações, dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey aan rabaa inaan fiiriyo. Pode me acompanhar por favor, fadlan isoo raac. Pode me acompanhar por favor, fadlan ma i raaci kartaa ama ma i hogaami kartaa, ma i horkici kartaa. Comerciante, bom dia, uu dhahay. Claro, haa, uu dhahay. Dabcan, claro, dabcan. Posso sim, haa, waan ku raaci karaa, waan ku hogaami karaa. Eu sempre tento, mar kasta waxaan isku dayaa manter tudo organizado, wax kasta inaan nidaamiyo. Manter tudo organizado, wax kasta inaan nidaamiyo ayaan isku dayaa. Só me explica, kaliya waxaad ii sheegtaa. Só kaliya me explica, waxaad ii sheegtaa kaliya, ma ii sharaxdaa. Por favor, fadlan. Se há algo específico, haddii uu jiro wax gooni ah. Se há, haddii uu jiro, agaada ma dhawaaqayso, aada dhawaaqayso. Algo específico, wax gooni ah. Que kaasoo você está verificando, aad xaqiijinayso ama aad baarayso. Ou amase uma inspeção, ou amase waa uma inspeção geral, mase waa baaritaan kormeer guud waaye. Kormeer guud miya mase shay gooni aad raadinaysaa? É uma fiscalização da rotina, waa kormeer ama baaritaan kii joogtada ahay, rotina. Mas laakiin precisamos, waxaan u baahanahay checar, inaan xaqiijino ama inaan fiirino. Checar, inaan fiirino. Checar iyo verificar waa isku mid. To check something, waa in la chegareeyo waaye. Se todas as vendas estão devidamente registrados waay. Se in todas as vendas, dhammaan waxyaabaha la iibinayo halkan saylka, estão devidamente, si saxa, registrados, loo diiwaan gelinayo, in u diiwaan gashayin si saxa. Devidamente maxaa waaye? Correctly waaye, macnaha si saxa. Registrados, in loo diiwaan gelinayo, ama registrados iyo registrados labadaba waa isku mid. E se sidoo kale in as notas fiscais, oo laga wada faturas, etc., faturooyinkii waxa la midka ah, estão sendo emitidas, in la soo saarayo, in faturooyin aad soo saartiin, oo yani faturooyin aad samaysiin waaye, corretamente, si saxa inaad u samaysiin. De acordo com as obrigações, iyadoo loo eegayo, de acordo com as obrigações, iyadoo loo eegayo tributárias, canshuuraadka waajibka ah. Obrigações tributárias, canshuuraadka lagu leeyahay. Tributária maxaa la yidhaha? Canshuur. Way garanayaan dadka of Soomaaliga inta badan, koonfurka Talyaaniga sidoo kale waa tributária ayaa la yidhaha. Marka obrigações tributárias waxaa la yidhahdaa canshuuraadka kugu qasabka ah.
Podemos começar. Waxaan ku bilaabaynaa pela verificação das últimas vendas. Inaan xaqiijino ama inaan fiirino iibkii ugu dambeeyey. Últimas vendas. Iibkii ugu dambeeyey inaan xaqiijino. Comerciante hadla, sim, claro, طبعا. Tenho todas as notas fiscais aqui. Todas as faturas. Faturooyinka dhan waa hayaa aniga. Impostos, canshuurtana waan hayaa. Tenho de todas as notas fiscais. Aqui, waa kana. Waa kana ama waan hayaa dhammaan canshuuraadka iyo faturooyinka. Impostos estão todos pagos. Dhammaan canshuurtiina waa la bixiyey. De acordo com o regime simplificado. Nidaamka la fududeeyey iyadoo loo eegayo ayaa la bixiyey regime simplificado. Kolley wadanka aad joogto wadan kasta regime wuxuu leeyahay imposto. Way fiican tahay in maaragtay qaab loo kala aad u check garayso u xaqiijiso, laakiin Angola oo kale sidaan filayo Portugalna inay la mid tahay. Inta badan Angola systemka Portugal ayay soo koobiyeysaa. Marka regime waxaa la yidhahdaa exclusão, regime simplificado iyo regime geral. Saddexa regime ayaa jirta iyadoo kambaniga loo eegayo hadba sanadkii inta lacag uu gado ayaa regimeyada la sameeyaa. Marka regime kastana ama qaab kasta nidaam kastana waxaa jira percentage canshuurta la bixinaya uma percentage specific ayaa la bixinaya. Marka simplificado qof ku jira intaan u bixinayaa geral exclusão. Wadanka aad joogtana marka jagaray adigu regime de impostos ama nidaamka canshuurta qaabku yahay isku day inaad wax ka ogaato si markaas canshuurta aad u bixiso. Kuma sii dheeranaya mowduucan maadaama uusan la xiriirin arrimaha dhaqaalaha ee luqadda kaliya aan ka wadan leenahay. Podemos começar a verificação das últimas vendas, né? Sim, claro, tenho todas as notas fiscais aqui, todas as faturas, impostos estão todos pagos de acordo com o regime simplificado. Não deve haver nenhum problema. Wax dhib ah maba dhici karaba. Não deve haver, maba jiri karto. Nenhum problema. Wax dhib ah maba jiri karaanba. Entendido. Entendido. Hadduu brasileiro yahay qofka la entendido oo leeyahay marka entendido ama entendido waan fahmay. Vou conferir waxaan xaqiijinaa faturooyinka. Ergaas oo kale waa hadal waaye dhawaq la muujiyo. يعني markaad xaqiijinayso waxa aad hadlayso kale aqui neste registro halkan neste registro diiwaankan vejo que waxaan arkayaa que você não emitiu fatura inaadan fatura soo saarin wax fatura ah ama se reciibka lacagaha la fatura inaadan soo saarin para uma venda de um produto shay aad gaday oo ah product no valor de kaasoo qiimihiisu ahay 5,000 kwanzas 5,000 meticais 5,000 reais 5,000 euros. Yani wadanka aad joogto markaasay ku xiran tahay. Mozambique haddaad joogto meticais baad ku gadaa dabcan. Angola haddaad joogtona kwanzas. Brazil reais. Marka produto no valor de 5,000 kwanzas. Isso é um problema. Dhib waa arrinkani kanu dhibaato u muujinaya. A legislação sharcigu exige wuxuu dalbanayaa sharcigu a emissão in la soo saaro de notas fiscais in faturo laga soo saaro para todas as transações comerciais dhammaan dhaqaaqyada ganacsiga in faturo laga sameeyo ayuu sharcigu maaragtay dalbanayaa. Este tipo de failure-ka nuucan oo kale ama dulduleelka nuucan oo kale ama guuldarrada pode acarretar wuxuu keeni karaa multa ganaax. Pode acarretar wuxuu la imaan karaa ama ka dhalan karaa multa ganaax. E dependendo iyadoona ku xiran tahay da gravidade hadba inta uu la eg yahay. A penalização pode ser pesada. Penalização ciqaabta ka dhalan karta ama ganaaxa pode ser pesada mid culus ay noqon kartaa. Dependendo iyadoo ku xiran da gravidade hadba heerka ay gaarsiisan tahay. O que maxaa tiri? O que maxaa tiri? Não emitir a fatura soo ma saarina. Fatura ma samaynba. Isso não é possível. Isso não é possível. Macquul maba ahan batani. Pois sababtoo ah
Eu sou muito cuidadoso. Aad baan anigu u digtoonaadaa. Cuidadoso. Com isso. Arrinkan aad baan anigu uga feejiganahay. Aad baan uga digtoonahay. Cuidadoso. Qof feejigana la yidhaahdo digtoon. Pode ter ocorrido algum erro no sistema. Waxaa laga yaabaa systemka inay ciladu ku dhacday. Pode ter ocorrido erro no sistema. Systemka laga yaabaa in ciladu ka jirtee. Mas tenho certeza, waxaan hubaa, de que in a venda foi registrada corretamente. In sale-ka si fiican u dhacay, si fiican loo diiwaan geliyay aniga hubaa. Eu faço o meu melhor, waxaan aad ugu dadaalaa. Faço o meu melhor, waxaan aad ugu dadaalaa. I do my best, manaa waan ku dadaalaa. Para estar em conformidade com as regras, inaan sharciga raaco. Sharciga inaan u hoggaansamo. Estar em conformidade com as regras. Sharciga inaan u hoggaansamo ayaan aad isugu dayaa. Eu sei que é uma falha. Eu sei, waan ogaa que é uma falha dessas. Macnaha failure noocaas oo kale ah, falha noocaan oo kale ah, ama qalad noocaan oo kale ah, não pode acontecer, maba dhici karo, waa inuusan dhicin. Mas peço, waxaan ku weydiisanayaa, peço, waxaan kaa codsanayaa, waxaan ku weydiisanayaa, bidii oo kale waa peço, que me dê, inaad isiiso uma chance, fursad de verificar novamente, inaan mar kale xaqiijiyo, si aan mar kale u xaqiijiyo, inaad fursad ii siiso. Vou buscar nos registros digitais. Waxaan soo raadinayaa sidoo kale nos registros digitais. Waxyaabihii online-ka loo diiwaan geliyey ama digitalka registrationka ah. Para confirmar si aan u xaqiijiyo registros digitais. Diiwaangelinta waxyaabaha la diiwaan geliyo iyadoo software-rada iyo la isticmaalayo digitais waaye. Para confirmar si aan u xaqiijiyo. Não quero que, ma rabo, que haja nenhum mal-entendido. Ani ma rabo in isfahan waa dhaco meeshan. Não quero que haja nenhum mal-entendido. Mana rabo in qalad la isu fahmo. Agente fiscal bahlo compreendo, waan fahmayaa u dha, compreendo. Anigu waan fahmayaa. Mas a falta de emissão da nota fiscal, inaad recibo soo saarto haddii la waayo, mas a falta de weynta emissão da nota fiscal, soo saaritaankii rasiibyada, é uma infração clara. Waa xadgudub, waa qalad ama xadgudub clara, cad. Se a venda realmente ocorreu, haddii si dhaba saylkaas u dhacay ama waxaas loo iibiyey, e não foi documentada, aana la qorin shaygaas, estamos diante de caso, waxaa haddaba na hor yaalla, estamos diante de, waxaa horteena imaanaya ama horteena yaalla, de caso, xaalad de não cumprimento, taasoo ah inaan la fulin. Não cumprimento, fulin la-aan, in wax la fuliyo la-aanteed, das obrigações fiscais, oo ah canshuuraadka. Canshuuraadkii oo la bixi waayey ayay taa macnaheedu noqonaysaa waay. A multa, por isso, pode ser significativa. A multa, ganaaxana, por isso, taas ka dhalanaya, pode ser waxay noqon kartaa significativa, mid weyn. Multa ama ganaax weyn baa ka dhalan kara. Chegando, taasoo xataa gaari karta, chegando a, taasoo gaari karta até 200% do valor do imposto devido. Boqolkiiba 200 canshuurtii lagaa rabay, boqolkiiba 200 ayaa la jibaaraya, yani 200% ayaa lagu dhifanayaa canshuurtii lagaa rabay. Hadday 5,000 ahayd, hadday 1,000 ahayd canshuurta lagaa rabay, 200% ku dhifo. Imposto devido waay, canshuurtii lagaa rabay ee inta lagu dhifanayaa. Você entende, miyaad fahmaysaa a gravidade, culayska uu leeyahay arrinkaasi? Não é, soo saa maahan. Você entende a gravidade, não é. Haddaba arrinkaasi dhibka uu leeyahay ama intuu gaarsiisan yahay waad dareemi kartaa, soo maahan. Eu entendo, waan fahansanahay, mas o senhor não pode fazer isso com mais flexibilidade. Eu entendo, waan fahmayaa, mas o senhor não pode fazer isso com mais flexibilidade. Arrinkaas flexible kama dhigi kartid miyaa? Ma gedgedi kartid, dhinacyo kale kama eri kartid, kama fiiri kartid miyaa? Foi erro isolado, waa hal qalad oo dhacay.
foi erro isolado. Waa hal qalad oo gooni ah. Isolado, isolated waay shay gooni loo bixiyo waay. Hal qaladoo dhacay oo gooni ah waay. Yacni ma ahan arrin mar kasta dhaca. Uma falha no sistema, qalad ka dhacay waay systemka. Não tenho intenção, ujeedadaydu ma ahan de burlar o fisco. Inaan canshuur dhaco ma ahan ujeedkaygu. Não tenho a intenção de burlar o fisco. Ma rabo ama ujeedkayguna ma ahan marnaba inaan canshuurta la dhuunto ama canshuurta inaan dhaco. Muito pelo contrário, arrinkaas cagsigeeda. Muito pelo contrário, cagsiga arrinkaasi. Eu pago os impostos em dia. Si joogta ah ayaan u bixiyaa aniga canshuurta. Trabalho honestamente, si daacad ayaan u shaqeeyaa. E tento sempre cumprir com tudo. Mar kastana inaan wax kasta fuliyo ayaan isku dayaa. Sei que a multa é uma forma de corrigir a infração. Waxaan ogahay a multa, ganaaxu, é uma forma, waa qaab de corrigir loo saxo a infração, xadgudubka. Mas, por favor, fadlan, poderia reconsiderar a situação. Fadlan, xaaladda dib u qiimay. Poderia reconsiderar a situação. Ama essa situação. Xaaladdan, fadlan qiimay. Eu entendo a sua preocupação, walwalkaaga waan fahansanahay, eu entendo. Waan fahansanahay a sua preocupação, walwalkaaga. Mas não posso deixar de aplicar a multa. Ani multada ama ganaaxa ma ka dhaafi karo. Mas não posso deixar, ma dhaafi karo de aplicar a multa. Inaan ganaaxa kugu qoro ma jooji karo. Ama inaan ku ganaaxo. Aplicar multa waa in la ganaaxo waaye. Se haddii a infração xadgudubka for confirmada, haddii ay caddaato qaladka aad gashay xadgudubka, ganaax anuu kaama daynayo. O procedimento fiscal, nidaamka canshuurta, exige, wuxuu amrayaa ama wuxuu dalbanayaa que todas as vendas sejam registradas, dhammaan waxyaabaha la iibinaya in la diiwaan geliyo, e documentadas corretamente, si saxa loo diiwaan geliyo, sem exceções, iyadoon kala reeb lahayn, without exception, wax exception iyadoon la sameynay ama aan la kala reebin. Não há como fugir isso, mana jirto arrinkaasi looga dhunto. Não há como, mana jirto kaasi fugir disso, taasi looga dhunto ama si laysaga ilaaliya ma jirto. Não posso deixar passar esse tipo de erro, qaladka noocaas oo kalena faraha kama qaadi karo. Sem as penalidades cabíveis, iyadoon loo samayn ciqaabta ka dhalanaysa. Sem as penalidades cabíveis. Penalidades, ciqaabta cabíveis, ku habboon, iyadoo loo eegayo, iyadoon ciqaabta ku habboon la marsin. Comerciante, eu sei, wuxuu dhahay, mas, laakiin uu dhahay, eu estou te dizendo, waxaan ku leeyahay, que não foi intencional. Arrinkan ma ahan arrin ula kaca. Mas eu estou te dizendo, anigu waxaan ku leeyahay, que não foi intencional. Não foi de propósito. Arrinkan ma ahan arrin oo ula kaca ma ahan, intentional ma ahan. Este não é o meu padrão de operação. Qaabkaan u shaqeeyana saas ma ahan. Este não é o meu padrão de operação. War sidaa ma ahan sidaan u shaqeeyo. Yacni dabeecadaydu sidaas ma ahan. Eu sei que esta fiscalização tem que ser rigorosa. Eu sei, waan ogahay, que esta fiscalização, baaritaankan, tem que ser rigorosa, waa inay mid xooga noqotaa. Mas eu sou pequeno comerciante, anu ganacsada yar baan ahay, iska tabar yar. Estou fazendo o meu trabalho, shaqadaydana waxaan ka shaqaynayaa para sustentar a minha família, inaan familkayga quudiyo, para sustentar, inaan quudiyo minha família, familkayga, e meus empregados, iyo sidoo kale dadka ii shaqeeya, meus empregados, sidoo kale dadka ii shaqeeya. Uma multa dessa, canshuur noocaas oo kalena, pode ser golpe para o meu negócio. Ganacsigayga dhibaato xoogan ay u geysanaysaa. Halis bay ku noqonaysaa, golpe, halis waaye. Para o meu negócio. Ganacsigayga ayuu halis geli karaa. Eu já estou fazendo o meu melhor. Waxaana ku dadaalayaa haddaba para corrigir o erro, qaladka inaan saxo. Para corrigir o erro, laba raadaadan muujin erro, aad tira qalad waaye. O erro, qaladka,
e me prevenir sidaana isaga ilaaliyo uga hortago para o futuro mustaqbalka dambe inaan iska ilaaliyo qaladaadkaas. Será que não dá para considerar primeiro aviso? Será que não dá? Miyaysan jiri karin macquul maahan miya para considerar inaad tixgeliso primeiro aviso digniin koowaad, yacni marka koowaad inaad ii digto hal qaladan galay inaad bal marka koowaad intaadan ganaax igula soo ordin aad ii digto suurtagal maahan miya? Será que não dá para considerar primeiro aviso? Fadlan digniin ma la ii digi kara miya marka koowaad? Uma oportunidade para regularizar, uma oportunidade sidoo kalena fursad miyaysan jiri karin para regularizar aan ku sixi karo qaladkaas. Eu entendo a sua posição, fikirkaaga waan dareemayaa, fikirkaaga ama waxaad aaminsan tahay ama hadalkaaga ama meeshaad taagan tahay waan dareemi karaa, mas as regras shuruucda precisam ser seguidas por todos, waa in dadkoo dhan sharciga u hoggaansamaan. As regras precisam ser seguidas por todos, dadkoo dhan waa inay sharciga u hoggaansamaan sem exceções, wax istithnaa iyadoon jirin ama dadka aan la kala reebayn. O problema é que uma vez que a infração é constatada, o problema dhibka jira é que uma vez que a infração é constatada, haddii la xaqiijiyo constatada ama verificada, constatada, haddii la xaqiijiyo a infração qaladka ama haddii kale xadgudubka, a multa se torna obrigatório. Marba haddii qaladka la xaqiijiyo ganaaxu waajib ayuu noqonayaa, a multa se torna obrigatória, ganaaxu markaas waajib uu noqonayaa ama qasab uu noqonayaa. Eu não posso, ma awoodo, por exemplo, tusaale ahaan, deixar de aplicar a lei, inaan sharciga u hoggaansamo ama sharciga inaan fuliyo, deixar de aplicar a lei, sharciga inaan fuliyo apenas por questões. Eu não posso deixar, por exemplo, sidoo kale deixar de aplicar a lei, inaan joojiyo sharciga inaan fuliyo apenas por questões pessoais, apenas por questões pessoais, sababo shakhsiya darteed oo amase humanitárias ama bini'aadanimo, sababo bini'aadanimo ama shakhsiya darteed uma dayi kara sharciga inaan fuliyo. Waa ujeedku. Eu não posso, por exemplo, deixar de aplicar a lei apenas por questões pessoais ou humanitárias. Porém, mas haddaad garanaysay porém na baro iyadana. Porém, maxaa waaye? Laakiin se você comprovar, haddaad soo caddayso que a falha, qaladku, foi mesmo erro isolado, hal qalad oo yar ama hal qalad oo gooni oo dhacay hadduu yahay, e corrigir, aad la saxdo imediatamente, si degdeg ah, u saxdo. Posso, waan awoodaa, talvez, waxaana laga yaabaa, aplicar uma multa, inaan ku ganaaxo ama uma multa, ganaax inaan kugu qoro mais leve, fudud, ganaax ka fudud kii kale, oo amase haddii kale atee ama ilaa xitaa ama haddii kale xitaa mesmo uma advertência, inaan digniin ku siiyo, uma advertência. Hore waxaan usoo oranay aviso iyo advertência isku mid oo ah digniin. Dependendo taasoo ku xiraa doonto seu histórico, iyadoo taariikhdaadii hore la eegayo, yani canshuuraadkaagii hore inaad qof ku taagnay sharciga canshuurta ilaali jiray inaad tahay, iyadoo la xaqiijinayo. Comerciante hadlay, eu entendo que a lei é a lei, anigu waan ogahay sharcigu inuu sharci yahay, waa ogyahay, yani in loo hoggaansamo ay tahay waay macnaha. Mas a minha sensação, aniga waxaan dareemayaa, dareenkayga wuxuu yahay, a minha sensação, dareenkayga é que estou sendo injustiçado, aniga in laygu xadgudbayo, qalad laygu samaynayaan arkaa, in lay dulminayaan arkaa. A minha sensação, dareenka aan muujinayo ama waxaan dareemayo, é que estou sendo injustiçado, in lay dulminayaan dareemaya. Eu sempre busco fazer tudo certo, waxaan mar kasta sameeyaa anugu
tudo certo wax kasta inaan saxoon certo ka dhigo ama saxo ayaan isku dayaa markasta sameeyaa e nunca tive problemas fiscais antes nunca tive verbo ter waaye eu nunca tive problemas mana aanan lahayn weligeena iguma aysan dhicin qaladaad fiscais oo la xiriira canshuuraadka antes hore igama dhicin wax qaladaad oo canshuurta estou sendo pego por erro waxa la igu qabsanayaa estou sendo pego waxaan la igu qabsanayaa por erro hal qalad que não é reflexo da minha conduta qaladkaas oo aan u taagnayn dhaqankayga ama dhaqankayga aan muujinayn como comerciante ka ganacsada ahaan yacni waxaanan dabeecad u lahayn ama dhaqankaygaba aan ahayn hal qaladoo dhacay darteed ayaa laygu haystaa não posso ser tratado mana ahan in la ila dhaqmo não posso ser tratado mana ahan in la ila dhaqmo como alguém sidii qof que tenta enganar kaasoo isku dayaya o sistema qof dowladda inuu qiyaamo rabo kale in la iga dhiga maahan não posso ser tratado como alguém que tenta enganar o sistema qof isku dayaya inuu dowladda qiyaano ma ahan la ila dhaqmo não sou eu não sou ma ihi fraudador qof oo ma ihi aniga fraudka ama arrimaha wax isdabamarsiinta iyo ka shaqeeya iyo musuqmaasuqa ma ihi qof musuqmaasuqlow ama ihi ama wax isdabamarsiiya não sou fraudador fraude waxyaaba isdabamarsiiska la yidhaha musuqmaasuqa wax la xiriira ama khiyaanada soo cometi waxaan deslize qalad yar iga dhacay soo cometi deslize qalad yar baa iga dhacay e estou pronto waxaana diyaar u ahay para corrigir inaan saxo isso qaladkaas imediatamente si degdeg ah estou pronto para corrigir isso imediatamente agente fiscal hadlay eu entendo waan fahansanahay sua frustração walwalkaaga aniga waan dareemayaa ama wareerku haya laakiin iyo porém isku mid ah como já mencionei sidaan hore u sheegayne se o erro foi confirmado qaladkaas haddii la caddeeyo ama wax la xaqiijiyo a multa será aplicada canshuur waxa lagu qorayaa waa lagu ganaaxaya lagu qori doonaa o que eu posso fazer agora waxa kaliya oon samayn karaa waxay tahay verificar waxay tahay inaan xaqiijiyo se há algo mais que você possa fazer haddii uu jiro algo shay mas wax kale que você possa fazer aad samayn karto para regularizar a situação sida arrinkan isaga xaliso regularizar a situação si aad u xaliso xaalkan como sidoo kale emitir tusaale ahaan in la soo saaro a nota retroativamente in mar kale la soo saaro fatuuradii in fatuuradii dib loo soo celiyo ama dib loo soo saaro se possível oo baadii macquul tahay e pagar imposto devido kadibna canshuurta lagu leeyahay inaad bixiso imediatamente si degdeg ah assim sidaas hadday dhacdana a multa ganaaxa talvez waxaa laga yaabaa seja reducida inay noqoto mid yar ama in la yareeyo a multa talvez seja reduzida caso contrário taas cagsigeedana não posso garantir ma awoodo inaan ku xaqiijiyo ama inaan ku sameeyo tratamento mais brando qaabtaa ka khafiifsan ma uu la dhaqmi karo tratamento habdhaqan mais brando mais leve laga wadaa macnaha ka fudud ma samayn karo intaas o que posso te aconselhar waxaan kugula tali karaa waa taladaan ku siinaya waxay tahay o que posso te aconselhar talada aan ku siin karo waa que corrija inaad saxdo a falha qaladka o mais rápido possível sida ugu dhaqsiyaha badan para minimizar si aad u yarayso as consequências cawaaqib xumada ka dhalanaysa arrinkaas inaad yarayso comerciantiga hadlo wuxuu dhahay eu realmente aprecio waxaan qiimeynayaa a sua compreensão fahankaaga aad baan u qiimeynayaa fahankaaga mas estou pedindo waxaan codsanayaa uma chance fursada mostrar se aan u tuso ama se aan u muujiyo que não sou uma pessoa ama inaan ahayn qof que tenta escapar das minhas obrigações inaan ahayn
qof ka dhuumanaya waajibaadkiisa, yacni qof ka dhuumanaya waxyaabaha lagu leeyahay. Talvez waxaa laga yaabaa eu possa pagar a multa integral. Sorry, waxaa laga yaabaa inaan bixiyo multa integral, canshuur dhammaystiran, se necessário waa hadday qasab noqoto ama haddii ay lagama horaan noqotee. Mas peço, waxaan codsanayaa, weydiinayaa, que me dê pouco mais de tempo, waqti yar in la isiiyo, para regularizar tudo, si aan dhammaan u soco, sem ser punido da forma severa, si aan ganaax culus igu dhicin, si aan ganaax weyn la igu dhigin ama aad la igu ganaaxin. Waxaan rabaa in waqti la isiiyo aan ku soxo. Tenho compromissos financeiros. Tenho compromissos financeiros. Compromissos ballama ayaan leeyahay financeiros dhaqaale e familiares iyo kuwa kale ballama sidoo kale famil ah, que tornam isso ainda mais complicada, kuwaasoo arrinkan sii adkay kara, mais complicada ka dhigi kara, yacni ballama ii yaalla aan leeyahay. O que me permite de facto, o que me permite, waxa ii ogolaanaya de facto dhab ahaantii, é o esforço, waa dadaalka, para corrigir o que me permite de facto é esforço, waa dadaalka, o que permite waxa ii ogolaanaya de facto dhab ahaantii é o esforço, waa dadaalka, para corrigir sidaan u saxo, e evitar aan uga gaabsado, evitar uga gaabsado ama isaga ilaaliyo novas falhas, qaladaad kaloo cusub. Mas laakiin uma multa elevada, ganaax culus haddii la igu qoro, pode realmente dhab ahaantii waxay keeni kartaa pode realmente comprometer meu negócio, waxay halis geli kartaa ganacsigayga. Multa ama ganaax culus oo la igu qoraa pode realmente comprometer, waxay halis geli kartaa meu negócio, ganacsigayga. Vou analisar a sua situação, xaaladaada waan qiimay doonaa, com atenção, taxadar ayaan ku qiimay doonaa. Vou considerar que, waxaana tixgeli doonaa, que foi erro isolado, hal qalad oo inay tahay, e verificar, sidoo kalena xaqiijiyo, se a documentação que você tem disponível, documentiga adiga aad hayso, tem disponível, documentiga aad haysato, pode ajudar inay naga caawi karto a reduzir a penalização, ganaaxa inaan yarayno, inuu naga caawiyo ama ciqaabta inaan yarayno. Não garanto, ilaa hadda ma xaqiijinayo, ma garantiyo kuma siinayo, que conseguiremos evitar a multa, inaan ganaaxa haki karno ama ganaaxa inaan meesha ka saari karno, ma ku xaqiijinayo. Mas com certeza waxaan hubaa a sua disposição para resolver, a sua disposição, diyaar noqoshadaada ama diyaar garowgaaga para resolver a questão, arrinkaanada xalisa ah, pode contar a seu favor, inuu arrinkaas ku caawi karo ama dantaada inay ku jirto, inuu arrinkaasi pode contar a seu favor, arrinkaas inuu dantaada ka shaqaynayo. A princípio, bilowga horeba, vou aplicar uma advertência, bilowga hore waxaan ku bilaabi doonaa digniin, e solicitar, waxaan sidoo kalena codsan doonaa, que imita a nota fiscal da forma retroativa, si ku celisa inaad u soo saarto fatuuradaas mar kale ama rasiibkaas, regularizando, adigoo kadibna saxaya a situação, dhibaatadan ama xaaladan. Mas se houver mais alguma irregularidade, se houver, haddii ay jirto ama haddii la helo ama hadday dhacdo mais alguma irregularidade, qaladaad kale, a penalidade será inevitável. Markaas in ganaax ama multo ama ganaaxa la samayn doonaa, será wuxuu noqon doonaa inevitável, mid lama huraan ah. Está claro? Arrinkaa ma cad yahay? Comerciante hadla wuxuu dhaha sim, eu entendo, waan fahansanahay, agradeço, waxaan ka mahad celinayaa muito, agradeço muito, waxaan aad uga mahad celinayaa pela sua compreensão, fahankaan kaga mahad celinayaa, e pela oportunidade, iyo sidoo kale fursadda aad ii siisay de corrigir, inaan saxo. Vou fazer o que for necessário,
wax kastoo lama huraan ayaan samayn doonaa para que isso não se repita, se arrinkaanu uusan u soo laalaaban. Acredito que waxaan rumaysanahay com esse tipo de fiscalização, baaritaanada ama fiscalização noocaan oo kale ah, rigorosa, kaas oo adag, todos saiam ganhando. Cid kastaa way ku guulaysan doontaa. Cid kastaa way guulaysan doontaa. Mas laakiin peço, waxaan weydiisanayaa que considere inaad tixgelisaan tamém sidoo kale o impacto saamaynta dessa multa ee ganaaxan uu yeelanayo em pequenos comerciantes, uu ku yeelan karo ganacsiyaasha ama ganacsatada yararka como eu oo anigoo kale ah, sideedoo kale ganacsatada yararka. A gente vou levar isso em consideração. Arrinkaa waan tixgeli doonaa. Vou levar isso em consideração. Vou concluir a verificação. Waxaan soo gabagabeynayaa xaqiijinta ama baaritaanka com base na sua colaboração, ayadoona laga amba qaadayo la shaqayntaada, iyadoo la tixgelinayo, laga amba qaadayo, la qadarinayo sua colaboração, la shaqayntaada. Decidirei, waxaan go'aansan doonaa o que é mais adequado, arrinka ugu habboon. Acredito que waxaan rumaysanahay que podemos resolver isso, inaan arrinka u xalli karno de forma justa, qaab cadaalad ah, se continuar cooperação, waase haddii aad sii wado la shaqaynta, se continuar a cooperação, la shaqayntaadu haddii ay sii socoto. Cashar dheer waaye. Agente fiscal e comerciante. Bom dia, sou agente fiscal do Estado. Estamos realizando uma fiscalização de rotina aqui no centro comercial. Gostaria de conferir a documentação da sua empresa e as notas fiscais das últimas transações. Pode me acompanhar, por favor? Bom dia, claro. Posso sim. Eu sempre tento manter tudo organizado. Só me explica, por favor, se há algo específico que você está verificando ou é uma inspeção geral. É uma fiscalização de rotina, mas precisamos checar se todas as vendas estão devidamente registradas e se as notas fiscais ou faturas estão sendo emitidas corretamente. De acordo com as obrigações tributárias, podemos começar pela verificação das últimas vendas? Sim, claro. Tenho todas as notas fiscais aqui, todas as faturas. Impostos estão todos pagos de acordo com o regime simplificado. Não deve haver nenhum problema. Entendido. Vou conferir as faturas. Aqui, neste registro, vejo que você não emitiu fatura para uma venda de um produto no valor de 5.000 kwanzas. Isso é um problema. A legislação exige a emissão de uma nota fiscal para todas as transações comerciais. Este tipo de falha pode acarretar a multa e, dependendo da gravidade, a penalização pode ser pesada. O que? Não emitiu fatura? Isso não é possível, pois eu sou muito cuidadoso com isso. Pode ter ocorrido um erro no sistema, mas tenho certeza de que a venda foi registrada corretamente. Eu faço o meu melhor para estar em conformidade com as regras. Eu sei que uma falha dessas não pode acontecer, mas peço que me dê uma chance de verificar novamente. Vou buscar nos registros digitais para confirmar. Não quero que haja nenhum mal-entendido. Compreendo, mas a falta de emissão de notas fiscais é uma infração clara. Se a venda realmente ocorreu e não foi documentada, estamos diante de um caso de não cumprimento de obrigações fiscais. A multa, por isso, pode ser significativa, chegando até 200% do valor do imposto devido. Você entende a gravidade, não é? Eu entendo, mas o senhor não pode ver isso com mais flexibilidade. Foi um erro isolado, uma falha no sistema. Não tenho a intenção de burlar o fisco,
Muito pelo contrário, eu pago os impostos em dia. Trabalho honestamente e tenho sempre cumprir com tudo. Sei que a multa é uma forma de corrigir a infração, mas por favor, poderia reconsiderar essa situação. Poderia reconsiderar essa situação. Eu entendo a sua preocupação, mas não posso deixar de aplicar a multa se a infração for confirmada. O procedimento fiscal exige que todas as vendas sejam registradas e documentadas corretamente, sem exceções. Não há como fugir disso. Não posso deixar passar este tipo de erro sem as penalidades cabíveis. Mas eu estou dizendo que não foi intencional. Isto não é o meu padrão de operação. Eu sei que esta fiscalização tem que ser rigorosa, mas eu sou um pequeno comerciante. Estou fazendo o meu trabalho para sustentar a minha família e os meus empregados. Uma multa dessa pode ser um golpe para o meu negócio. Eu já estou fazendo o meu melhor para corrigir o erro e me prevenir para o futuro. Será que não dá para considerar um primeiro aviso, uma oportunidade para regularizar? Eu entendo a sua posição, mas as regras precisam ser seguidas por todos, sem exceções. O problema é que uma vez que a infração é constatada, a multa se torna obrigatória. Eu não posso, por exemplo, deixar de aplicar a lei apenas por questões pessoais ou humanitárias. Porém, se você comprovar que a falha foi mesmo um erro isolado e corrigir imediatamente, posso talvez aplicar uma multa mais leve ou até mesmo uma advertência, dependendo do seu histórico. Eu entendo que a lei é a lei, mas a minha sensação é que estou sendo injustiçado. Estou sendo injustiçado. Eu sempre busco fazer tudo certo e nunca teve problemas fiscais antes. Estou sendo pego por um erro que não é reflexo da minha conduta como comerciante. Não posso ser tratado como alguém que tenta enganar o sistema. Não sou um fraudador, só cometi um deslize. E estou pronto para corrigir isto imediatamente. Eu entendo sua frustração. Mas, como já mencionei, se o erro for confirmado, a multa será aplicada. O que eu posso fazer agora é verificar se há algo mais que você possa fazer para regularizar a situação. Como emitir a nota retroativamente, se possível, e pagar o imposto devido imediatamente. Assim, a multa talvez seja reduzida. Caso contrário, não posso garantir um tratamento mais brando. O que posso te aconselhar é que corrija a falha o mais rápido possível para minimizar as consequências. Eu realmente aprecio a sua compreensão, mas estou pedindo uma chance de mostrar que não sou uma pessoa que tenta escapar das minhas obrigações. Talvez eu possa pagar a multa integral, se necessário, mas peço que dê um pouco mais de tempo para regularizar tudo isso, tudo sem punindo de forma severa. Tenho compromissos financeiros e familiares que tornam isso ainda mais complicado. O que me permite, de facto, é que esforço para corrigir e evitar novas falhas. Mas uma multa elevada pode realmente comprometer o meu negócio. Vou analisar a sua situação com atenção. Vou considerar que foi um erro isolado e verificar se a documentação que você tem disponível pode ajudar a reduzir a penalização. Não garanto que conseguiremos evitar a multa, mas com certeza a sua disposição para resolver a questão pode contar ao seu favor. A princípio, vou aplicar uma advertência
e solicitar que emita a nota fiscal da forma retroativa, regularizando a situação. Mas se houver mais alguma irregularidade, a penalidade será inevitável. Está claro? Sim, eu entendo. Agradeço muito pela compreensão e pela oportunidade de corrigir. Vou fazer o que for necessário para que isso não se repita. Acredito que com esse tipo de fiscalização rigorosa, todos saiam ganhando. Mas peço que considerem também o impacto desta multa em pequenos comerciantes como eu. Vou levar isso em consideração, vou concluir a verificação com base na sua colaboração. Decidirei o que mais adequado. Acredito que podemos resolver isso da forma justa, se continuar cobrando. Ina fahanteen ayaan jeclahay waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.